dagaalada ka socda deegaana hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan kaasi oo sababay dhimashada dad aad u fara badan oo dhinacyadii dagaalamayay iyo dad shacab oo deegaanka ku sugan shir jiraa'id oo maanta gudaha magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayuuna kaga hadlay dagaalada ka taagan deegaanka Matabaan isagoo ku codsaday in dagaalka loo joojiyo si shuruud la'aan waxaan halkaan rabaa inaan baaq nabadeed uga diro beelaha ku dagaalamaya gobolka Hiiraan iyo shabeelooyinka dagaal baa wuxuu ka socdaa magaalada Matabaan iyo hees inta u dhaxaysa reer Soomaaliyeed ay ku dagaalamayaan dagaalkan wuxuu socdaa hadda ilaa 2 biri u dhameysay waa dagaal aad xun dhiig badan baa ku daatay marka ugu horeysa waxaan ku baaqaynaa dagaalkaasi degdeg in loo joojiyo aad baan uga xunahay dadka halka wax ku noqday kuwa ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay labadaba dagaal lagu daalay weeye dagaal la soo noqnoqday weeye dhibta Soomaalida oo aad u dahday weeye waxaan rajaynaynaa si degdeg ah wax looga qabto waxaan ugu baaqaynaa dhaqanka iyo maamulada iyo dadka Soomaaliyeed oo iyo culimada diinka intaba arinta in si degdeg ah looga hawl galo dagaalka ka socda deegaanka Matabaan ayaa waxa u dhaxeeya beelo wada daga kuwaas oo colaadu markii hore ay ka bilaabatay dhul daaqsimeed waxaana sidoo kale arintaasi walaac ka muujiyay qaar kamida qaybaha kala duwan ee bulshada ururada bulshada rayidka ayaa ka hadlay doorka nabadda iyo in la joojiyo colaadda ka taagan qaybo kamida deegaanka Matabaan kadib markii fursad uu siiyay telefishinka Somali Cable shucuubta ku nool gobollada shabeellada dhexe iyo Hiiraan gaar ahaan deegaanada ay dagaaladu ka socdaan waxa nasiib darro ah dad muslimiin ah inay bish Ramadaan ay dagaalamayaan oo qabaliye ay ku dagaalamayaan waa nasiib darro annaga waxaan u soo jeedinaynaa dawladda federaalka ah iyo maamul goboleedka Hirshabeelle labadaba in arrinkaas yaani ay soo farageliyaan oo military ahaan ay soo farageliyaan sidoo dhaqanka ayaa sidoo kale cod dheer ku sheegay in la joojiyo colaadda ka taagan Matabaan boqor Cabdullaahi Geedi Shadoor ayaana ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya Matabaan inay dagaalka joojiyaan soo gaaray si akhyaarnimo ah oo muslimnimo ah oo qaraabanimo ah in loo joojiyaan rabnaa waxaan idin soo jeedihaynaa haddii Allah idmo in dagaalkaas la joojiyo akhyaartii dhaxgal leedo ama culumada ahayd ama odayaal ahayd ama wax garad ahaaleed daw haween yahay iyo daw rag yahay iyo daw dhalinyaro yahaba in la dhaxgalana inta kale u jeedayna dadkiina dagaalku ka socdana joojiya dagaalka dhaxdii maalmood ee la soo dhaafay dagaalada ka socda deegaanaha hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan waxay noqonayaan kuwa galaaftay nolosha dad rayida kuwaas oo markii hore ay saameysay abaar iyo cudurro ka dhashay abaarta Abdicays Cabdullaahi Maxamed Abdicays Somali Cable Muqdisho